waxaad inta badan daawataan barnaamij la magacbaxay badbaadada bulshada ha yeeshee dadweyne waxaa isweydiin mudan waxa uu ku saabsan yahay badbaadada bulshadu yaa la badbaadin maxaase laga badbaadin. badbaadada bulshadu waa barnaamij ka dhashay aaraada dad culamaa u diina iyo aqoon-yahano waaweyn allah weyne oo soomaaliyeed isu tegay oo uu ka mid yahay xaafidullaahi doctor saciid sheekh abubakar. daawadaha qaaliga ah oo alaaba barnaamijkan badbaadada bulshada marka aad daawataan waxa aad isweydiin kartaan maxaa loogu talagalay. waxaase wanaagsan wax waliba waxaa la yidhi aragtida ayaa looga dharga amaba maqalka in aad si toosa ula socotaan oo maadaama uu yahay taxane. anigoo badqaba soo badbaadada bulshada barnaamijka la magacbaxay maana baran oo beerkiiyo wadnihiiyo bogaygii lamu tagin. waxaan idinku boorinaynaa in aad si taxana ula socotaan maadaama uu yahay barnaamij loogu talagalay badbaadinta bulshada. waxaa afka qalaad loo yaqaan social care amaba saving the society oo macnaheedu yahay in dadka islaamka ah ee dunida jooga caroor ciroole waayeel nin weyn nin yar iyo nin dhalinyaro ahba in lagu daneeyo lagu soo dabaala diinta islaamka. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. وقفنا عربي فهمنا قرآن نؤس فهمنا وهذا أقوله مرارا وأقوله بثقة وحقيقة وصلص. قرآنا عربيا غير ذي عوج. قرآنك إن بدن بك سؤال وقت آياتس قرآنك وأفعال به إنجليش هذا كترجمتي صومالي هذا كترجمتي قرآنك ما هذا فهمت حقيقة هذا قرآنك فصل هذا كان فصل وكي كان بحياته كبرت وحد برتي مجد وذا تظهر ويدلالين ما عنينا أنا وذا تظهر المنطقة أن وذا تظهر ميسن هني وحيابها عنها اللي أوفسيلتي ويدلالين أنت بين سوكرسي جزاهم الله كل خير لكن ما أنت ما صعنش فصل هذا كان فصل ويكي كلام بحياة باب وضوئي باب كي سوي أنت ما صعنش والباب معنى هذا الحكي باب وضوئي باب كي سوي باب ما معنى الباب ما معنى الوضوء ما كنت حاجة اللغة العربية اللي هي عندها هذا علم هذا أرجد إني نقضان وأنا محببنا وإن بيتري نقضان وقولني لكن أنه محرمنا بطريقة عصرية ومبسطة على الجماعة وحضر معها لأنه إله وحنا لديه قرآنك وعربي هذا بقى قرآنك إلهي وفضينا عربي إلهي وفضينا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر قرآنك وفضينا نمبرنا يا مجرى هذا بقى حوالي أساسية اللغة العربية المدرنة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحياة بدل بالسوية لك واحد السوية وحقونا سن مركا إلى حق السوية
نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لم يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. dhegeysiga khayrka wuxuu mataqaanaa dhegeynayaa jannada oo dhegeysiga badan hadaad khayrka dhegeysato aakhirtaanka insha Allah taala jannada gelaysaa. Nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri uqdu caaliman aw mutacalliman aw mustamican aw muhibban wala takun khamisa fatahlika. daily routine-kaaga ha noqdo maalin kastaba inaad noqoto caalim haddaa cilmi leedahay inaad cilmiga gudbiso, haddii kalena aada wax barato oo qof waxbarasho ku jiro noqdo wax baranaayo ee maalintaasi kaa lumin, ama aada noqoto mustamic qof mataqaanaa hadii jeer dhegeysanaya khayrka, ama qof muxibban oo khayrka jecel inaad noqoto. haddaba maanta waxaanu idiin soo bandhigaynaa badbaadinta bulshada, arday badbaadinta bulshada ka dhigta oo asigoo da-diisu ay jirto 10 sano waddankan soo galay, dabeetana maanta lecture la siin doona. Soomaalida hadda waxay dabeecad ka dhigatay marka muxuu ahaa maalin kastaba safar lagu jiraa. waxaa loo socdaa Suuriya waa la soo noqday, waxaa loo socdaa Masr waa la soo noqday. cilmiga ilmaha kor uma soo degayaan, waa inuu qofka helaa the right macallin, the right teacher inuu helo. sida qofka markuu xanuunsan yahay oo u raadinayo takhasus, qof mataqaana takhasus ah oo u raadsanayo the right doctor, inuu qofkan u raadsado macallinkana oo asaga xusho. maanta waxaan filayaa oo adinkana marqaati ay noqon doontaan markaad lecture-kaasi oo yarkaasi jaamacadda dhigta aan idiin soo gudbiyo aad ka miisaami doontaan. لأنه حكمة بوحي أرنسا إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعك. هذه منطقة علم قاعدة يوحى هذا أنت كويس سنين كتابات ده أسوس وجمع سو وح فائدكم أنت محمد فائدكم جالس صلوا كتابات وحي كقريه وأنا منطقة أنت كويس هذيك الكتاب كاس كحراني في مركز سوا بدنا جدي كسر جيران marka dadweynuhu waxaan ka rabnaa bal idinka miisaankaas inaad samaysaan difference-aha idinka aad aragtaan. ninkan waxaa la yidhahdaa Axmed Bassam, wuxuu ka dhigtaa jaamacad ku taalo London agagaarkeeda oo la yidhahdo Kent University, oo wuxuuna bartaa pharmacy oo uu ku jiraa waxbarasho oo ka mid ah badbaadinta bulshada. badbaadinta bulshada sideedaba dadka waxay ka dhistaa caqliga إنه وحفهمه إنه القدر عليه برضه هذا بلا كريه ما أحب بدباد بالشيء سيء من القرى قلت روحي لصاحة في السيء ولا صاحة أخرية أنا روحي اللي فهم سنين مركا هذا نكا أكيد متان همودنا إنه السوداني هاي همودنا إنه يهاي مروكان والصومالي نكا وحو وده كان بدي أصيغه وجرو 8 سنة ما معناه نكا وحو صوب برباري عرب ما asigoo 10 jir meesha yimid luqadda carabiga iyo tarbiyada wuxuu ka qaatay meesha wadanka. marka hadii Soomaalida waa la yiraahdaa sheekadooda xogaa marka la joogo waxa leeyahay war shaq ah ka cararno. cilmiga waxa waaye waa inaad u heshaa qofka ku habboon inaad hesho sida dhakhtarku u raadinayso. iskuulka oo aan furnayn waa jira oo aan ka furnay Harleston. nink alla qofkii xiiseynaya arrintaas hadduu rabo sida dhaqaatiirta wanaagsan loo raadiyo oo raadinaysan macallimiin wanaagsan oo takhasus ku ah carabiga iyo diinta iyo cilmigan kale intaba isugu kooban. waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkan hoos ku qoran mataqaanaa aad nagala soo xiriiri kartaan. marka waxaan rajeynayaa bandhigaas aan soo bandhigayo inaad idinka caqligiin inta dhiman aad ka dhamaystirin doontaan si uu noogu jeedi doono marka u horeysa باللغة العربية iyo luqadda Ingiriiska soo noogu jeedin doono. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا